in ka badan 300 askari oo ciidamada xoogga dalka ka mid ah gaar ahaan kuwa kumaandooska ayaa halkan lagu soo dhaweeyay. Waxaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Cali Amar Dambe, taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareygaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe iyo saraakiil ciidan. Salaan ay ka qaateen ciidamada mas'uuliyiinta soo dhaweeyay kadib. taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareygaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa sheegay tababarka ay soo qaateen inuu ahaa mid heerkiisu sareeyo. وعيد إنكم صوته ومرتين وأخوته ومرتين وميليتري أكثر هنا تكسر نقطان ذلك هذه أصلا مرتين إنكم وأمانة وحليها ذلك مقصود نقطين وصول dhinaciisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa sheegay inay yihiin ciidamadan dadka ugu sharafta badan dalka maadaama ay ogolaadeen inay bixiyaan dhigooda. bini'aadamka waxa uu qiimo badan ugu sharafta badan qofka dalkiisa u helgamo maanta idinkoo raali ku noqday oo raali noqday inaad dhiiggiisna aan u bixisaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina runtii wax aad iyo aad noo qiimo badan waay insha allahu tacaala waxaad ku soo laabateen dalka idinkoo tababar soo dhammaystay xilligii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku wajahan taariikh 12 ee bishii abriil ee 2019 oo laga joogo muddo 59 sano ka hor aabiyaasheenna ayaa waxaa ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta badan ay u taagan runtii waa la socotaan waa ognahay sharafkii iyo karaamadii iyo haybadda ay ka gaareen geeska Afrika gaar ahaan ee dalkeenna oo loogu magacdaray magacoodana ahaa African Lion maanta aan rabno inaan sharafkii karaamadii soo celin gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad lafdhabar u noqotaan inaad hormuud u noqotaan inaad kuwa fursadda aan u helin oo meesha maanta aadeen oo fursadooda aan helin inaad ugu faa'iideystaan runtii oo soo laabataan waxa soo barateen dalka kula soo laabataan runtii aad iyo aad ay noo farxad gelinaysaa insha Allah ta'ala annagana insha Allah ta'ala inaan idin garab istaagno. waxaa maalin qura ay ka dhiman tahay u dabaaldegga sanad guurada 59aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka 12 Abriil waana ciidamadii ugu horeeyay oo kumaandoos ah oo lagu soo tababaro dalka Turkiga dibna ugu soo laabta Muqdisho. Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mahad Mutawakkil Shabeelle Muqdisho.